daawadayaal ku soo dhawaada dhammaantiinaba waxaad nagala socotaan Dhambaal Media. Waa subaxnimo Arbacaha taariikhdu ay tahay 4 bisha March. Waxaa shalay taariikhdu markay ahayd 3 bisha qarax lagula beegsaday gudoomiye Xasan Sheekh Maxamuud oo goordhow qarax lagu dilay. Qaraxaas ayaa wuxuu ku dhintay gudoomiyaha Xasan Sheekh Maxamuud oo isku magac yihiin madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya. Qaraxa ayaa goordhow ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, sida ay ku soo waramayaan wararka halkaas naga soo gaaray. Gudoomiyihii maxkamadda gobolka Sool Xasan Sheekh Maxamuud oo qaraxan gaarigiisa loogu xiray ayaa la sheegay inuu ku geeriyooday. Mas'uuliyiin kala duwan ayaa xaqiijiyay in gudoomiyuhu uu ku sugnaa xarun ay wasaaradda maaliyaddu leedahay oo aan ka fogeyn hoteelka uu ka degan yahay. Gudoomiyaha ayaa wuxuu ku sugnaa xarun wasaaradda maaliyadda oo aan ka fogeyn meesha uu degan yahay, sida ay noo xaqiijiyeen dad goobta ku dhawaa. Ayaa ma jirin cid la saarneyd gaariga waqtiga uu qaraxu ka dhacay oo ahayd abaarihii 5:15 oo galabnimo PM daqiiqada galabtii. Ilaa haddana mas'uuliyiinta ammaanka Somaliland kama hadlin qaraxan. Lama oga ilaa hadda cidda fulisay qaraxan iyo sababta ka dambeysay, iyadoo qaraxyada noocan oo kale oo ay ku caan ku tahay Al-Shabaab aan looga baran magaalada Laascaanood.